bulxaar waqtigaa waxa weeyaan waa maala unbaa shaqaynaysa dee meeshan aan ka dhicin ee cajaa'ibka ahayd ee waxaan oo dhan waa mandiisa waa maydhe kolkaa ilbaxnimadu kolbadii isbedelada caynkaasiyaa socday bulxaar baan kolkaa nacan u soo socday oo barnaamijkeenu ahaa si aynu dee wax uga fahanno bulxaar waa taa waxaynu nidhi kolkuu sanadku ahaa bulxaar way duntay horta way waxaa liqday mar zaylac iyo berberaa liqday waxay dib u soo ifbaxasaa kolkaa gaab dheer waa antigwity ba waqtiga la yidhaa way ka baxasaa kolkaa reeraha intaa deganna waxay u kala safraanuun zaylac iyo berberaa kolka intaa joogtay ayaa waxaa dhacaya sanadkii kolkuu ahaa 1839 ingiriiska ayaa qabsanaya cadan wuxuu la gelayaa treatmentkii kolkaa heshiisyadii laakiin cadan waxa weeyaan kolkaa waa koonfurta yaman baa la yidhaahdaa ayay magaalo madax u tahay waa magaalo qadiimiya waa dhul ballaadhan waxa isku haystay boqortooyadii cismaaniyiinta iyo portugal waa halkay isku dileen runtii kolkaa cismaaniyiintuna waxay haystaan maka iyo ticis iyo iyaga haysta dabadeetna waxaa dhacday geebka xilligaasi cadan ay ingiriisku yimaadeen boobing baxa noqday ciidamo badan bay keeneen kolkaa ujeedadoodu waxay ilaashanayaan waxaan goortan la yidhaahdo golof of cadan amba golof of berbera ilaa waktigii xakiim baasha suleyman ninkii la oran jiray ee 1800 iyo 1500 iyo 1830 ilaa soo qabsaday yaman oo dhan xeebaheega xudeeda kooka maka caara dubaab ilaa halkaa cadan bortugiiska ay cadan ka saaraya ee ilaa waktigaasi wakti laysku haysto meel laysku haysto quwadaha adduunyada ee waktigaasi jira ee navyga waxaa la yidhaahdo xagga badda ku awooda badan bay ahayd waayo bortugiisku Spain waxay ka ilaashan jirtay hindiyay haysatay berigii hore kolkaa gulf of Aden ilaa hormuuska ilaa Indian Ocean kii halkaa very de waxay ahayd crucial roads kolkaa uu ka maarmi waayey cismaaniyiintii weerar bay soo qaadeen waa ka ilaa halkaa qabsadeen waa kan dee waktigan uu imanayo futuux alxabush xilliga bilaabmaya sayr xilliga imanayaan ee ay dee influenceka ilaa ay nala soo gelayaan ee xidhiirkeenu bilaabmaya dee waxa weeyaan waa 1540 ilaa waktigii hore futuux alxabush ilaa influenceka way ku lahaayeen saylac oo ilaa 1510 de waa kuwan ilaa ifaat iyaga ayay ahaayeen nimankan de engineer kolkaa interest ayay ahaydoo waxbaa la kala ilaashanayay dhinacan kale bortugiisku oo isaguna waa kan dee abasiniyanka iyo wax taageeraya iyo yurub ay daba joogto iyaduna soo kacasay tugrigan baaba-ay 1818 nacam dagaalo dheer oo laisku baabiiyey ayaa jiray hadda tugrigu imika inuu soo yar noolaaday intan ordagan de haystay baad moodaysaa waa kan de badahan weli aynu dee neefiyadan iyo waxaan la keenayana waa taariikhda hore oray kolkan halkaa joogo cadan boobing bay noqotay berbera nacam sarbalas bay dirtay kolkaa iyo caynkan
abaan tourist badan baa yimid oo Europeana oo safari la oran jiray amba sportsman oo la kaxaynayo fargal baa loo gelinaya kolkaa Yonis Nuux iyo Axmed Nuux baa barwaaqadii anaa qaadanayo yaa anigu ma qaato halkaasay ka bilaabmaysaa dagaal baa dhacaya dagaal la isku riiqmay oo ballaaran oo dad cayladii ay isku waxaan la damacayo baawarkuna dee waa cajaayib alliance baa lasoo kala adeegsaday oo la isku dalbaday xitaa waa alliancekii ugu horreeyey iyo boqortooyooyin iyo waxbaa la isku isticmaalaya laba boqortooyo oo midna xaaji sharmaarka cali saalex uu hogaaminayo ilaa casab dhinacan kale obakh tajara zaylac dhinacana xidhiir lale dee shariifkii xudeeda calaa kulli xaal Yonis Nuux baa kolkii dambe ayaa lasoo riixayaa waxaa laga soo saarayaa bulxaar berbera sanadku markuu ahaa 1844 kolkaa Yonis Nuux hindidoodii iyo carabtoodii iyo dee wixii oo dhan ba industriyaalkii oo dhan wixii ay wakiilada u ahaayeen iyo abaanka u ahaayeen wixii oo dhan bay wataan bulxaar kolkaasaa revive civilization dambe oo gebigeegaba khatar challenge culis rifle ku noqda kolkaa berbera iyo saylac ayay noqotay halkaasay ka bilaabmaysaa kolkay 3 sannadood baa cusharkii isku duba dhacay dee waxaan dagaalaa la isku adeegsanaya we don't know xitaa weerarkan ciisa uu ku soo qaadayo 3,000 weerarleydii ay soo weerarayaan xitaa waxa berberaa u adeegsanayso ciisa gacanta waxa ku hayay amiirkan herar oo herar iyo berbere lama kala dhex mari jirin kolkaa ama in la xidho ayay ahayd we don't know ma garanno laakiin waxa ay dileen dumar iyo caruur bay gumaadeen dad waaweyn